waxaynu soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Qodobada aan idin hayo oo warkeena aad ku maqlaysaan waxaa ka mid ah ciidamada Ruushka oo maanta markaasi si buuxda u burburiyay kaabayaashii tamarta ee gobolka Odessa ee koonfurta waddankaasi Ukraine. waxaa sidoo kale aad maqlaysaan dowladda Romania oo markaasi howlgelisay ilaa 4 diyaaradood oo markaasi ah kuwa dagaalka ee fighter jetska kadib weeraradii cuslaa ee Ruushka ay maanta ka geysteen koonfurta waddankaasi Ukraine, waxaana ay ka cabsadeen in xuduudda labadan dal ay ka soo gudbaan diyaaradihii droneska ahaa ee lala dhacay gobolka Odessa. iyo sidoo kale waxaad maqlaysaan caasimadda labaad ee ugu weyn ee dalkaasi Ukraine oo maanta lala dhacay diyaarado drones ah iyo gantaalada noocyadooda kala duwan, xilli sidoo kale Ruushka gantaalo ballistic ah kuwa S-300 iyo diyaarado drones ah oo aad u tiro badan ay la dhaceen gobolada qaar ee waddankaasi Ukraine. waxaa sidoo kale aad maqlaysaan weeraro culus oo laga soo tabinayo galbeedka iyo koonfurta waddankaasi Ruushka, halkaasi oo diyaaradaha droneska ee ridada dheer ay ku hoobteen, waxaana weeraradan markaasi sheegtay ciidamada sirdoonka ee waddankaasi Ukraine. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaan idin hayaa oo warkeena aad ku maqlaysaan daqiiqadaha nagu soo aadan. haddii aad nagu cusub tahay ha hilmaamin in subscribe-ka aad nagu taageertid si muuqaalo caynkan oo aad u xiiso badan aad dalkan uga bogatid. waxaan ku horeynayaa ciidamada Ruushka oo maanta weeraradii ugu cuslaa ku qaaday kaabayaasha tamarta ee gobolka Odessa, waxaana halkaasi laga soo tabinayaa burbur aad u xoogan. ciidamada Ruushka ayaa markaasi beegsaday xarunta shirkadda tamarta ee DTEK ee gobolka Odessa, waxaana halkaasi laga soo tabinayaa burbur aad u xoogan sida wararku ay tibaaxayaan. wararka qaarkood sidoo kale waxay sheegayaan in ciidamada Ruushka diyaarado drones ah ay ku holciyeen xarumo istiraatiiji ah, kaabayaal dhaqaale iyo saldhigyo waaweyn oo ku yaala koonfurta waddankaasi Ukraine. xalayto ay ahayd markii ciidamada Ruushka ay sidoo kale markaasi beegsadeen dhammaan xarumaha shirkadda ee soo saarta korontada islamarkaana qaybisa ee dalkaasi Ukraine ee DTEK ee gobolada ugu badan ee waddankan, xilli maanta malaayiin qof oo ku nool waddankaasi Ukraine ay ku dhacday koronto la'aan. madaxweynaha waddankaasi Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa haatan waxa uu si rasmi ah markaasi sidoo kale u xaqiijiyay in ciidamada Ruushka ay markaasi burburiyeen xarunta laga soo saaro korontada ee magaalada Sloviansk ee bariga dalkaasi Ukraine. tani ayaa sidoo kale kusoo aadaysa xilli wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Romania ay si rasmi ah markaasi u shaacisay in 4 diyaaradood oo markaasi ah kuwa dagaalka ay maanta howlgeliyeen kadib weeraradii cuslaa ee Ruushka ay ka geysteen koonfurta waddankaasi Ukraine. tani ayaa sidoo kale kusoo aadaysa xilli ciidamada Ruushka ay maanta markaasi beegsadeen xuduudda ay wadaagaan labada dal ee Romania iyo Ukraine, waxaana tani cabsi xoog leh ay ku abuurtay dalkan oo ka tirsan ururka gaashaanbuurta NATO. wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Romania ayaa hayeeshee sheegtay inaanu jirin diyaarado drones ah oo ka soo gudbay xuduudda labadan dal islamarkaana ku dhacay deegaanada qaar ee hoos yimaado waddankaasi Romania. dhanka kale ciidamada Ruushka ayaa maanta diyaarado drones ah waxa ay ku weerareen caasimadda labaad ee ugu weyn ee dalkaasi Ukraine sida wararku ay tibaaxayaan. in ka badan 6 qof ayaa markaasi la sheegay inay ku dhaawacmeen weeraradan, kuwaasi oo xaaladooda caafimaad haatan lala tacaalayo. taliyaha ciidamada militariga ee caasimadda Kharkiv ee waqooyi bari ee waddankaasi Ukraine ayaa maanta si rasmi ah markaasi u xaqiijiyay in ciidamada Ruushka ay markaasi burburiyeen kaabayaal dhaqaale, xarumo istiraatiiji ah, saldhigyo waaweyn iyo dhismayaal dowladeed. waxaana sidoo kale markaasi jira dhowr guri oo ciidamada Ruushka ay ku burburiyeen weeraradii xooganaa ee maanta ay ka geysteen caasimadan labaad ee ugu weyn ee dalkaasi Ukraine. dhanka deegaan lagu magacaabo Ruska Lozova oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada caasimadda Kharkiv ee waddankaasi Ukraine ayaa sidoo kale laga soo tabiyay burbur aad u xoogan sida haatan wararku ay tibaaxayaan. dhanka kale ciidamada Ruushka ayaa maanta gantaalada ballistiga ee Iskander-M oo ay ka soo tuureen gobolka Rostov iyo 6 gantaal oo nooca S-300 ee Savage-to-Air oo ay ka soo tuureen gobolka Kursk galbeedka waddankaasi Ruushka iyo 130 diyaaradood oo noocan duuliyaha lahayn ee droneska oo markaasi siday waxyaabaha qarxa, waxa ay ku weerareen gobolada qaar ee waddankaasi Ukraine. ciidamada cirka ee dowladda Ukraine ayaa markaasi sheegay inay ka hortageen islamarkaana hawada ay ku burburiyeen ilaa 92 ka mid ah diyaaradahaasi droneska ah, halka inta kalena ay ka gudbeen nidaamkooda difaaca hawada. diyaaradahan droneska ah ayaa markaasi isugu jiray Geran 2 iyo diyaaradahan droneska ah ayaa isugu jiray Geran 2 iyo Shahed
waxaana ruushka ay markaasi doonayeen inay ku weeraraan waqooyiga koonfurta iyo bariga waddankaasi Ukraine. dhanka kale 163 dagaal oo foolka fool ah ayaa saacadihii aynu soo dhaafnay laga soo tabiyey gobolada qaar ee waddankaasi Ukraine, waxaana dagaalada ugu xoogan haatan ay ka socdaan Kupiansk iyo sidoo kale Pokrovsk. dhanka gobolka Kursk ee galbeedka dalkaasi Ruushkana waxaa laga soo tabiyey 7 duqeymo, 15 bambooyin oo markaasi ah bambooyinka nooca la hago ee guided-ka, 159 markaasi ah gantaalada artilleriga, iyo in ka badan 300 oo diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ee droneska oo lala eegtay islamarkaana lagu burburiyey saldhigyada iyo goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada Ukraine islamarkaana ay ka dagaalamayaan. Kupiansk, Lyman, Siversk, Soloviansk, Kramatorsk, Konstantinivka, Pokrovsk, Alexandrivka, Kholiapol, Orekhiv, Volhynia iyo Polisian waa meelaha dagaalka ugu xoogan haatan uu markaasi ka socdo. dhanka kale wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Ruushka ayaa goorsii horeysay si rasmi ah markaasi u xaqiijisay in 840 askari oo ka tirsan ciidamada militariga ee dowladda Ukraine in lagu dilay laguna dhaawacay dagaaladii adkaa duqeymihii iyo weeraradii Ruushka ay ka geysteen saldhigyada iyo goobaha ay ka dagaalamayaan ciidamada militariga ee dowladda Ukraine 24 saac oo aynu soo dhaafnay. 5 taangi, 2 gawaari oo markaasi ah kuwa gaashaaman ee dagaalka, 42 markaasi ah qalabka laga rida gantaalada artilleriga, 2 ka mid ah nidaamka difaaca hawada ee air defense-ka, 3 ka mid ah qalabka laga rida madaafiicda nooca MLRS-ta, 425 markaasi ah diyaaradaha nooca aan duuliyaha lahayn ee droneska ee UAV-da ee lagu dagaalamo, iyo 94 gawaari ayaa 24 saac oo aynu soo dhaafnay laga burburiyey ciidamada militariga ee dowladda Ukraine. tan iyo Febraayo 24-keedii ee sanadkii 2022 oo dagaalkan uu qarxay 1,145,670 askari ayaa laga dilay lagana dhaawacay ciidamada militariga ee dowladda Ukraine, waa sida wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Ruushka ay markaasi sheegtay. dhanka kale hal qof ayaa goorsii horeysay si rasmi ah markaasi loo xaqiijiyey in lagu dilay halka 11 kalena lagu dhaawacay duqeymihii iyo weeraradii cuslaa ee Ruushka ay ka geysteen gobolka Dnipropetrovsk. taliyaha ciidamada militariga ee gobolkan oo qoraal rasmi ah soo dhigay bartiisa Facebook ayaa markaasi sheegay in 12 guri, 3 dhisme oo dhowr dabaq markaasi ka koobnaa, kaabayaal dhaqaale iyo xarumo istiraatiiji ah oo ku yaalay halkaasi in dab xoog leh oo markaasi ka kacay Ruushkana ay ku burburiyeen weeraradii xoogana ee gantaalada iyo diyaaradaha droneska ay markaasi u adeegsadeen. meelaha burburka ugu xoogan laga soo tabinayo waxaa ka mid ah deegaan lagu magacaabo Mykolivka, halkaasi oo ciidamada Ruushka ay weerarada ugu xoogan markaasi ka geysteen. deegaan lagu magacaabo Vasilikhvana waxaa ciidamada Ruushka ay markaasi ku weerareen bambooyinka nooca la hago ee guided-ka, waxaana jira burbur xoog leh oo halkaasi laga soo tabinayo. sidaas oo kale caasimadda Nikopol waxaa ku hoobtay madaafiicda nooca Gradka, gantaalada artilleriga iyo diyaaradaha droneska ee nooca FPV-da, waxaana jira burbur xoog leh oo halkaasi sidoo kale laga soo tabinayo. ciidamada Ruushka ayaa sidoo kale diyaarado drones ah la dhacay kaabayaasha dhaqaalaha ee deegaanka lagu magacaabo Pavlohrad, waxaana jira burbur xoog leh oo halkaasi haatan laga soo tabinayo. taliyaha ciidamada militariga ee gobolka Dnipropetrovsk ayaa dhanka kale sheegay in 9 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ee droneska in ciidamada cirka ee dowladda Ruushka ay ka hortageen islamarkaana hawada ay ku burburiyeen diyaaradahaasi oo la doonayay in lagu weeraro xarumaha istiraatiijiga ah iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee gobolka Dnipropetrovsk ee koonfur bari ee waddankaasi Ukraine, sida uu hadalka u dhigay. intaasi ayaa nooga gudbayaa wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Ruushka iyo Ukraine oo aad ka daawanayseen islamarkaana aad kala socoteen kanaalkeena. fadlan haddii ay tahay markii ugu horeysay oo aad nagu soo biirayso, ha hilmaamin in subscribe-ka nagu taageertid si muuqaallo aynkan oo aad u xiiso badan aad dalkan uga bogatid. tan ismaqalkeena xigana waxaan idin leeyahay sidaas iyo ismaqal dambe oo aad u xiiso badan.